بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرد حرور عشركي قدام بي maanta waxa uu ku saabsan yahay Ingiriiska, marxaladda Ingiriiska ka jirta, Ingiriiska u gaar maaha. Finland bay ka jirtaa, Holland bay ka jirtaa, Jarmalka ka jirtaa, Faransiiska ka jirtaa, Sweden bay ka jirtaa, Norway ka jirtaa, Denmark bay ka jirtaa, Belgium ka jirtaa. Dhaqaale xumaa jira. Dhaqaale xumada waxaa dheer akhlaaqdii baa xumaatay. Ingiriisku iyo dadka reer galbeedka dhaqankooda qaatay ma kala garanayaan rag iyo dumarka. Hadda maanta rag iyo dumarka ma kala garanayo. Waxa dowladdu ay ku dadaashaa, macallimiintu ku dadaalaan, jaamacaduhu ku dadaalaan, idaacaduhu ku dadaalaan, dadka bulshada meelaha laga maamulo jooga ay ku dadaalaan in ninku gabadh iska dhigi karo, gabadhuna nin iska dhigi karto. Waxaa kaloo lagu dadaalaa in boqolkiiba 48 waa badh weeye, waa badh, wax yar baa ka dhiman. Ilmaha waa iska soo tuuraan, waa la iska soo tuuraa. Dowladda ogol lacagta bixisa. Waxaa kaloo ay dowladdu ansixisay in dadka waayeelka ah ee doonaya inay isdilaan kiniin ama irbad la siin karo. Marka waa akhlaaqdii baa xumaatay. Wadaadada Soomaaliyeed ee joogaana dadka uma digayaan, way iska sii socdaan, ama xawaalad bay haystaan ama dukaamay haystaan. Waxay dadka inay ku yiraahdaan war meeshan iskaga taga, waddankiinii ku noqda, waddankiinii xoreysta oo ka xoreysta cirro, ka xoreysta Xasan Sheekh iyo kuwa lamida, kuwa suudka xidha iyo naagaha rag daba carara ee iska dhigeen wax yaqaaniin ee gumaysigu saaray ragga iyo dumarka. Marka taasi waa taa. Dhaqaalii baa xumaaday. Dhaqaalii markii hore wuu xumaan, laakiin imikun baan anagu ogaanay. Aqlabuna weliba inta badankiisu ma oga, laakiin in yar baa lagu ogaaday. Maskaxdayda kortay. Waxaan ogaanay in been loo sheegay wixii aflaanta waxina loogu sheegay been noqotay. Ra'iisul wasaaraha soo socda waa 4 sano ka bacdi. Haddii ku guuleysto dadka muslimiinta oo dhan waa la celiyaa, kuwa ku dhashay kuwa kale. Haddii la celiyana waddanku wuu sii baaba'aya, waayo dhaqaalaha yar yar oo dhan waxa soo geliya muslimiinta. Dukaamada xagga hoose oo dhan, meelaha caafimaadka, dadka waayeelka la haynayo, nadaafadda oo dhan waxa ka shaqeeya waa dadka. Marka wuu burburayaa. Se waxa u fiican muslimiinta in la celiyo. Waa kuwa midigta xag jira, marka kaasaa laga yaabaa inuu badiyo. Anigu waxaan odhan lahaa dadka iminka dhowr sano waxaa lahaa Finland halkaa kale ha laga noqdaan lahaa, war waddankii ha lagu noqdo, diintaani xitaa u fiicnayn. Marka iminka danbaaba keeni doontaba. Marka marxaladdu waa taas. Dhaqaale laguma hayo. Wuxuu yidhi waxbaan soo maxay mahmaahdi ahayd, waxbaan soo doontay laakiin aniga oo wax khasaaray baan noqonayaa. Malaa ribay ahayd. Ri soo doonatay geeso oo noqotay iyadoo bilaa dhagala. Saasay sheekadu ahayd baan filayaa. Mahmaahda waa jiri jirtay Soomaaliya saasa. Wax beel bay dartaa.